ururka walaalaha Arabsiyo oo inta badan ka shaqeeya arrimaha bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada una gargaara dadka jilicsan leh ayaa qayb libaax la ka qaatay oo muuqda dhismaha isbitaalka weyn ee degmada Arabsiyo kaasi oo dhammaan qalabeyntiisna ayagu si buuxda u qalabeeyeen oo ay keeneen container qalaba oo ay ugu talagaleen isbitaalka degmada Arabsiyo. Isbitaalkan laga dhisay degmada Arabsiyo ee ururka walaalaha Arabsiyo ay qaybta libaax la ka qaateen ayaa bulshada ku dhaqan deegaanadaasi ay baahi badan u qabtay. waxaana munaasabadii xariga laga jariyay isbitaalkani ugu horeyn ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay doorka ay ku lahaayeen isbitaalka gudoomiyaha ururka walaalaha Arabsiyo Fadxiya. waxaan aad iyo aad ilaahay baa mahadnaqaynaa awalan xaaji baxsane oo aanay laantii dhakhtarkani hirgaleen dhismuhu iyo dhulka markii hore u bixiyay muddo dheer oo sanado badana ayaa xaajiga iyo anagu miisaak soconuun maxaynu yeelaa markuu dhis ilaabaa wax kale iman jiray laakiin maanta ilaahay qadaray bay dhisantay xaajigu markuu dhulkaa bixiyay ee la dhisay waqti dheer baa ka soo wareegay haddana mar labaad buu bilaabay oo dhulkan dhisay dhul kale aan iibinay annaguna lacag ilaa $50,000 oo ururka walaalaha Arabsiyo geliyeen qalab iyo dhulba inta kalena xaajigaa geliyo liminlaabkeeda iyo saddexlaabkeeda waxaa kaloo mahad celinaya wasaaradda caafimaadka oo iyaduna doorkeygii si degdeg u ciyaartay oo ka qayb qaadatay hoolkan aynu fadhino iyo qaybo kalaba iyo shaqaalaha badde wasaaradda iyo dawladda haddaanay jirin dadkuna waxma qaban kareen waxaan ka rajaynaynaa maadaama aan ku hadlayo afkii ururka walaalaha Arabsiyo ururku wuxuu taagan yahay horumarinta degmada Arabsiyo iyo jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaanteed meelo badanna waan ka qayb qaadanaa waxaan ku tala jirnaa inaan biyihii soo gelino isbitaalka haddii ilaahay yaa maalmahaas goobtayna ku soo haya waxaan aad iyo aad u farayaa wasaaradda caafimaadka mar haddaanu magaalo ballaadhan oo beeraley nahay oo dad badani degan yahay inay qaybtii dumarka umulaya lagu qaylahaa iyo baankii dhiigga iyo howlaha dhakhtarka maqan ayaguna nala dhaqaajiyaan annaguna kama tegayno ururka walaalaha Arabsiyo weligiiba haddii ilaahay yidhaahday inuu joogaya oo wadaya wax kastoo dhakhtarka looga baahdo waa urur waxbarashada iyo ka shaqeeya caafimaadka. sidoo kale waxa iyaguna halkaastii hadalka iska kala dambeeyay mas'uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabadda xariga jarka oo si weyn ugu mahad celiyay ururka walaalaha Arabsiyo oo ay sheegeen in door lixaad la ka qaateen dhismaha iyo qalabaynta isbitaalka degmada Arabsiyo. waxaan jecelahay inaan aad iyo aad ugu mahad celino haweenweynaha walaalaha Arabsiyo ee iyaguna qalabka waxaan filayaa isbitaal Soomaaliland qalabka halkan yaala oo yaala inaan jirin waxay u qalabeeyeen si hagar la'aan runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa dhammaan haweenkaasi meelay joogaanba dalka gudihiisa iyo dibadiisaba waan ugu ku hambaleeynaa runtii mashaariicaha khayriga ah ee waxbarasho leh ee caafimaad leh ee ay degmada iyo gobolkaba ka wadaan oo runtii ugu muhiimsan tahay hawshan maanta joognaa aad ugu mahadnaqaynaa hablaha iyo inamadaba walaalaha gudoomiyaheedu halka fadhiyaan walaalaha Arabsiyo runtii waxaanu leenahay walaalihii rasmiga ahaa baatiin waana kaga dhabaysay muuqaalka aad samaysayna runtii waa wax aad iyo aad u qiimo badan oo isbitaalladeena kale maanta oo liba soo dhigteen dibad iyo guud waxa ka soo ururisayba waxaanu leenahay waa idinku hambalyeeynaa walaalnimada dhabtiina waa taa marka aad wax qabato ee aad wax ku kordhiso walaalka marka uu wax qabto aadna inta kale aad ku darto runtii waa wax aad iyo aad weyn oo qiimo badan جزاكم الله خيرا أيان لين هاي قدوميها إيو جروب كوالالها عربسيو قلبينتا والالها عربسيو يقول بتشيكتا Somaliland كسو تشيرا دقمة عربسيو أيا يجونا قلبينتا أكيد دونتان قروح لهذا يصير لو قلبي ومانت Somaliland أما جيس كأفريقيا وعنو ملايين يدخل ساو قلبي سنين على تشيرين أيا جيستي oo run ahaantii isbitaalkani uu yahay isbitaal si weyn u qalabaysan oo casri ah oo ku yimid isku tashiga ama wax wada qabsiga dadweynaha iyo dawladda hadday tahay dawladda hoose iyo hadday tahay dawladda dhexaba waxa kale oo aan jecelahay inaan aad iyagana ugu mahad celiyo hablaha iyo inamada walaalaha Arabsiyo oo run ahaantii iyaguna min bilowgii isbitaalkan ama fikirkiisii ilaa iyo maanta oo uu dhamaystir yahay maalin qura aan ka nasan waxaan xasuustaa dhismihii ugu horeeyay iyaga halkan ka taagay oo dhismahaasi oo markii dambe la dumiyay
waxa kaloo ay ka qayb qaateen qalabka cusbitaalka oo run ahaantii ay yidhaahdeen waxa liya waxa qalab ku baxaya naloo soo qoro lacagtoodiina ay ku bixiyeen dibaddana ay ka direen oo container qalabihii u yimid cusbitaalkan